madaxweynaha dawladda federaaliga ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxmuud oo maanta shir jiraa'ida ku qabtay xarunta madaxtooyada ayaa soo dhaweeyay go'aankii mudanayaasha baarlamaanka ay maanta ay gaareen. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo baarlamaanka Soomaaliyeed sida mas'uuliyadda ay ku jirto, sida hufnaanta iyo cadaysnaanta ay ku jirto maanta ay u dhacday labadan birin ay u soo socotay hawshii baarlamaanka ka mid ahayday waxyaabaha laga rajeeyo institutionska ama hay'adaha dawladnimo khaasatan kuwa dimuqraadiga ah sida ay u dhaqmaan. taariikhda Soomaaliya marar badan oo baarlamaanku go'aano xasaasi ah ay soo mareen waa jirtay, laakiin waan wada garanaynaa sidaan oo kale uma ayan dhicin. marka xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya waan u hambalyeynaya sida wanaagsan ee mas'uuliyadda ay ku jirto hawsha baarlamaanka waajibaadka dastuuriga ee saarnay ay u guteen. waxaan leeyahay waan ugu hambalyeynaya. dhinaca kale madaxweynaha dawladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa mahadcelin u jeediyay ra'iisul wasaare Saacid iyo xukuumaddiisa muddadii sanadka ahayd ay talada ay hayeen. waxaan sidoo kale rabaa fursaddan inaan uga faa'iideysto oo aan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha sii baxaya iyo xukuumaddiisa oo aan leeyahay muddadii aad soo joogteen dalka waxbaad u qabateen. dalka kama ayan dhicin fashil laga kala cararo oo xukuumadeed ma ayan jirin. wax badan oo aad iyo aad u tiro badan ayaa muddadii sanadka ahayday soo qabsoomay. wax badan oo aad iyo aad u tiro badan oo gudo iyo dibad leh oo maantana dadka Soomaaliyeed maanta la joogo ay ku faani karaan ayaa soo qabsoomay. maalintii ay mas'uuliyadda qabanayeen iyo maanta Soomaaliya way kala duwan tahay, laakiin haddana xuduudda horumarku meelna kuma eka. muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa jiray warar sheegaya in mooshinkani laga soo abaabulay madaxtooyada. mar madaxweynaha arrinkaasi aynu weydiinay ayaa waxa uu yiri: waa mahadsan tahay. aniga iyo Cabdi Faarax Shirdoon Saacid prime ministerkii hore wax khilaafa oo shakhsi ah oo noo dhaxeeya ma jiraan. shalayna saaxiib baan ahayn, maanta saaxiib baan nahay. intii baarlamaanka uu fadhiyo codaynayay telefoon ku wada hadlaynay. inta aan kulannay maalmaha shaqadana ay socotay maalin walba wixii shaqo aan waan u kulmaynay wixii maxaan ku raadin. marka waxaan leeyahay Saacid wax khilaafa oo shakhsi ah ma jiraan. wax khilaaf oo shakhsi ah ma jiraan. waxaan ku kala ra'yi duwanaanay waxay ahayd maamulka dawladnimada, laakiin waxaan leeyahay shalayna saaxiibaan ahayn, maantana saaxiibaan nahay, birina saaxiibaan si ahad doonaa. waliba mar badan idaacadda waan ka sheegay shakhsiyadiisa qof aan iska helin aad iyo aad qaali u ah oo qiimo badan waay, laakiin hawl haday jirto waa lagu kala ra'yi duwanaa karaa. ugu dambeyntii madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxmuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay in dalka uu hiigsanayo meel aad u fog, isagoo geeska kala xusay inaysan jiri doonin khilaaf lagu soo xalin doono dalka dibadiisa. wuxuuna geeska kale uu tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ra'iisul wasaare uu ku soo magacaabi doono. سلمان جمال سعيد TV عالمي يونيفرسال مقالة مقدشو.